Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Maalin wanaagsan khayarta wadanaga la xirta halkan oo barta YouTube-ka aan kulana maalin baa nagala socotaan. Maantana waxaan kusoo qaadan doonaa beriyahan waxaa socday dagaal aad u culus oo ka socda gobolada Hiiraan iyo Mudug. Haddana waxaa bilowday dagaal kale oo kasii culus. Ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo xildhibaan ka tagay magaalada Muqdisho ayaa ku biiray dagaalka Dhuusamareeb, kuwaas oo dhulka maray muddo 14 sano ah kadib. Waxaan kaloo kusoo qaadan doonaa nin ka tirsan 47 qofood ee Mareykanka lacagta ku dhacay oo la leeyahay maxaa Cabdullaahi Farmaajo guriga loo dhisay ee lacag ugu deeqay sidee ku dhacday taas ayadana jawaab ayaan ka bixin doonaa. Marka haddaan ku hormarno ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ka baxay magaalada Muqdisho iyo xildhibaano la socda oo ka mid yahay xildhibaan Dhagdheer waxayna gaareen magaalada Dhuusamareeb, kuwaas oo ayagana muddo 14 sano kadib dhulka ku maray lug oo weliba ciidamadu si ugu baxeen magaalada Muqdisho oo maray Hiiraan oo dhan oo maray Galgaduud iyo Gurceel Dhuusamareebna gaaray. Waa taariikh markii ugu horeysay 14 sano kadib ururka Al-Shabaab ay haysteen in laga saaray dhulkaas oo laamigana si toos ah u shaqeynaya. Ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya waxay isku diyaarinayaan guluf dagaal oo lagu qaado magaalooyinka Ceelbuur ilaa iyo Galhareeri ilaa iyo Xardheere iyo meelo kale oo fara badan. Ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya hadda waxaa ku biiray qabiilo kale oo Soomaaliyeed oo ayagana dagaalka si toos ugu biiray. Ciidamadaasna waxay kaabi doonaan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya halkaas joogo iyo dadka macawisleyda oo is aabulay, kuwaas oo ayagana halkaas ku sugan deegaanada Dhuusamareeb u dhow. Marka dagaal ayaa ka dhacay meelahaas meel u dhow shalay galabkii ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ku guuleystay dagaalkaasi, waxayna ka saareen ururka Al-Shabaab tuulooyin hoostaga degmada Dhuusamareeb, kuwaas oo ayagana markii dambe dhankaas oo Ceelbuur u sii siqay oo haddana waxaa la leeyahay waxay usii socdaan Ceel Garas ilaa iyo Ceel Qooxle ilaa iyo dhulkaas waxaa la yiraahdaa Ceelbuur ilaa iyo Galhareeri ilaa Jacare ilaa Bergaan ilaa iyo Coosweyne. Ciidamada dagaal aad u culus ay u diyaargaroobeen dhulkaasna waxaa la leeyahay dhul aad u ballaaran oo ururka Al-Shabaab ay ku fadhiyaan. Haddii marka aan qiimeyno hadiiba magaalada Muqdisho ciidamo ka baxay ee Dhuusamareeb dhulka ku mareen waa wax badan isbedel la dhihi karaa. Ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya dagaal aad u culus ay halkaas ugu diyaar garoobeen muddo fara badan ayaa la dhahay qabiilaadka Soomaaliyeed dagaalka ay u diyaar garoobeen. Haddana qabiilo kale ayaa halka dagaalkaasi ku biiray. Xalay waxaa shiray beelaha Mudulood oo ku shiray magaalada Muqdisho ayagoo go'aan ka gaaray in ururka Al-Shabaab si toos ula dagaalamaan ka xoreeyaan dhulka ururka Al-Shabaab ay ka haysato beelaha Mudulood, kuwaas oo ayagana aad isu diyaariyay. Xildhibaan Sheekh Xadoole oo hadlay xalay wuxuu yiri anagana lama dhaafayo haddii aan iska aamusnana waxba noo matarayso beelaha Soomaaliyeed way iska xoreynayaan ururka Al-Shabaab, anaguna waa inaan u diyaar garownaa. Marka wuxuu yiri haddii anaga aan dagaalkaas aan ka qayb galin wax noo suuragalaya malahan. Muddo fara badan ayaan halkaas ururka Al-Shabaab shacabka ku dhibaateynayeen, baadna ka qaadayeen, dhulkeena iyo hantideena ku qaateen, guryaheena iyo beeraheena ay qaateen. Marka wuxuu yiri waa inaan u diyaar garownaa dagaalka sidoo hadalka u dhigay. Marka waxaa la leeyahay dagaalkan maxaa kusoo beegay beelaha Soomaaliyeed. Waxaa la leeyahay dadka horta qaar waxay leeyihiin waxaa kusoo beegay culays kaga yimid dhanka Al-Shabaab oo beelaha Soomaaliyeed ay aad u kululaadeen muddo fara badan ay dhibaato fara badan ka dareemayeen iyadoo halkaas cadaadiska la saaray shacabka ay ka kacdoomeen. Marka dadku waxay isweydiinayaan muddo 14 sano ah kadib maxay shacabka u kacdoomeen, marka hore maxay u kacdoomi waayeen oo dagaalka ay u gali waayeen. Marka hadda waxaa la leeyahay abaarihii iyo ururka Al-Shabaab iyo sakawaadkii iyo barnaamijyadii iyo wixii isku soo biirsaday saas darteed ay shacabka u kaceen. Marka Galmudug waa is diyaarisay, Hiiraanna hadda inteeda badan dhulkeeda way xoreysatay. Hiiraan meelaha ay ka joogeen ururka Al-Shabaab laga saaro deegaano u dhow Buulo Burte, deegaano u dhow ayagana Maxaas iyo Moqokori ilaa iyo dhankaas Awoorey meel la yiraahdo ilaa Booco ilaa Halgan ilaa iyo dhulkaas oo dhan waxaa la leeyahay ururka Al-Shabaab waa laga saaray. Haddana waxaa ka taliyay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo ciidamada macawisleyda, kuwaas oo si toos ah halkaas u maamulay. Taliyaha ciidamada lugta Jeneraal Bixi ayaa sheegay in dagaalka ay ku guuleysteen ayuu ku dilay dad fara badan oo ururka Al-Shabaab ka tirsan. Halkaasna wuxuu dhahay dagaalka ayaan kasii wadi doonaa, maalmaha soo socda meelo fara badan ayaan qabsan doonaa. Kuwa Galmudug ayagana waxaa la leeyahay way diyaar garoobeen oo dagaalka si toos ah ay u galeen. Xildhibaano ayaana ku biiray markii hore xildhibaano kale ayaa halkaas ku sugnaayo deegaanada Dhuusamareeb iyo Cadaado iyo waatay tageen Al-Cadaal iyo rag kale ay tageen. Marka Sadiq John ayaa kamid ah halkaas ragga tagay oo asagana ahaan jiray taliyaha booliiska gobolka Banaadir. Rag fara badan ayaa dhiirigelin u sameynaya. Wasiir TikTok ninka loo yaqaano oo wasiir gaashaandhigga isaga asagana dagaalka ku biiray. Ninka aad iyo aad asagana waxaa la leeyahay safka hore ayuu ku jiraa. Sawiradiisa meesha ay ka arki doontaan. Marka wax badan isbedel la leeyahay dagaalkan waji kale ayuu yeeshay. Dowladda federaalka Soomaaliya waxaa leeyahay hadii ku guuleysato wax badan ay u qabsan doono muddooyinka soo socdo. Marka waa arki doonaa dagaalkaas iyo meesha la gaaro deegaanada dadka soo jeeda Ceelbuur ilaa iyo Galhareeri dhulkaas ayagana ku biireen ilaa Ceel la helay ilaa iyo Ceel Qooxle ilaa Ceel Garas dadka ka soo jeedo dhan way ku biireen leeyahay dagaalka.
in wax badan ayaana maalmaha soo socda isbedeli doono. Dhulkaas haddii laga soo saaro dhulkan shabaab waxay noqon doontaa dhammaan guud ahaan gobolada galguduud iyo mudug in laga soo saaray si toos ah gobolka hiiraan laga soo saaray. Marka halkan waxay usoo jeesan doonaan markaas jubbooyinka iyo baay bakool ayay isugu soo aruuri doonaan. Halkaas ayay xaaladdu ku dambeyn doontaa hadduu ilaahay raado. Marka wixii wararkaas kasoo kordho iyo dagaaladaas waan ogaan doonaa. Waxaa la leeyahay raggii lagu xiray Mareykanka ilaa iyo adiga 7 qofood lagu xiray, 3 qofood dumar ayay ahayn, 4 qofoodna waxay ahayn rag. Marka 4taas qofood oo rag ahaa mid kamid ah waxaa la leeyahay wuxuu lacag usoo diray maxaa Cabdullaahi Farmaajo tabarucaadi guriga xabiibul malaayiin oo barnaamijkiisa aad u socday muddooyinkii lasoo dhaafay, taasoo iyada ugu dambeynna meel cidla ka baxay. Waxaa la leeyahay qadar jigre aadan ninka la yiraahdo waa nin 59 sano jir ah. Waxaana leeyahay wuxuu lacag ka dhacay 250 milyan ah asaga iyo 47 kale oo Soomaali Mareykan ah ayaa lacagtaas dhacay. Waxaana lagu haystaa leeyahay in lacagta ay dhaceen qadar hadda iyo rag kale oo fara badan oo lagu xiray magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka. Waxaana la leeyahay aad iyo aad ayaa isha maxkamadda loo soo saari doonaa, howl badan ayaa ku socoto. Ninkaas waxaa leeyahay wuxuu $1,000 u dilay maxaa Cabdullaahi Farmaajo dowladiisa. Waxaanu dhahay maxaa Cabdullaahi Farmaajo waa nin fiican oo wanaagsan, asagoo ima garanaya, aniga ayaa garanaya. Bartiis Facebook ayuu soo dhigay. Waxaana ugu deeqay ayuu yiri lacagta guriga lagu dhisay lacag $1,000 ayaan farta ka saaray oo u diray maxaa Cabdullaahi Farmaajo akoonkiisa. Marka ninkaas maadaama lacagtaas oo diray waxaa la leeyahay asagaba lacagta si qaldan ay ku keenay leeyahay oo lacag COVID-19 loogu talagalay ay isdaba marin ku sameeyeen asagii 47 kale oo Soomaali ah. Qaarkood waxaa la leeyahay waxay ku sugan yihiin dalka Kenya. Waxay sameysteen guryo dabaqyo ayay gateen oo bildhimo waaweyn ay ka sameysteen. Qaarkood waxaa la sharciyada ay bedesheen oo Kenyaati ka dhigteen, qaarkood Muqdisho meel kale ka degeen, qaarkood Jigjigo iyo Goday ay ka degeen. Marka dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan corruption-ka musuqmaasuq waa lagu yaqaanaa, meelo fara badan ay dhibaatadaas iyo corruption-kaas u geysteen. Marka waxaa la leeyahay marka dadku waxay isweydiinayaan lacagtaas ninkaas loogu deeqay dad kale fara badan oo lacag ku deeqay lacagii xagee ka baxeen. Dadka hadda suuqa waxa ku jirto lacagii maxaa Cabdullaahi Farmaajo loo aruuriyay in la musuqmaasuqay, rag fara badan ay musuqmaasuqeen oo ay gacanta ku dhigeen. Nin shiiqa oo Canada joogo asagana shiiq mar walba dhaho maxaa Cabdullaahi Farmaajo aad u taageeraa, asaga lacag fara badan ku soo dhacday leeyahay, asagana lacagta wuu lunsaday. Waxaa kaloo leeyahay in lacag la lunsaday oo lacagta maxaa Cabdullaahi Farmaajo gurigiisa loogu talagalay waxaa lunsaday leeyahay ninka la yiraahdo oday oo ah agaasimihii hore madaxtooyada iyo ninka la yiraahdo Cali oo asagana akoonkiisa lacag badan ay ku soo dhaceen. Labadaas nin ayaa waxaa leeyahay magaalada Muqdisho u qabilsanay akoonada maxaa Cabdullaahi Farmaajo guriga loogu dhisayo, inkastoo gurigii aan lagu guuleysanin warkiisna meesha uu ku dhamaaday. Lacag fara badan ayaa madaxa maxaa Cabdullaahi Farmaajo lagu cunay. Lacagaasna waxaa cunaa leeyahay oday iyo Cali oo ah gudoomiye ku-xigeenka amniga gobolka Banaadir oo aan weli xilka wareejinin. Waxaa kaloo sheegay asagana lacag aad u badan dhacay ninka la yiraahdo oday oo asagana ah agaasimihii hore madaxtooyada dowladda federaalka Soomaaliya, kaasoo maxaa Cabdullaahi Farmaajo muddo fara badan la shaqeynayay. Dadka akoonada furay macnaha Facebookyada iyo meelaha ka baafinayo lacagta aad u badan ee kusoo dhacday akoonadoodana waxaa leeyahay waa ayaga. Marka akoono kale oo ayagana waxaa leeyahay lacag ku jireen waxaa xanibaa leeyahay taliyaha NISA Mahad Maxamed Salaad, taasoo waxaa leeyahay ugu dambeyn akoono kale oo ayagana lacag badan oo kusoo dhacay oo dibadda ka yimiday waxaa joojiyay taliyaha NISA Mahad Maxamed Salaad, kaasoo la leeyahay danta uu ka leeyahay lama garanayo, laakiin ayadana waa la joojiyay. Marka maxaa Cabdullaahi Farmaajo guriga loo dhisay meeshaas ayuu ka baxay. Soomaalida mar walba corruption iyo musuqmaasuq iyo waxyaabo aan loo joogin waa lagu yaqaanaa. Lacag ilaa $200,000 ilaa $700,000 ayaa macnaha leeyahay lacagaha la dhacay. $700,000 Muqdisho guri way ugu dhistaa maxaa Cabdullaahi Farmaajo, inkastoo dadka Soomaaliyeed intaas ka badan ay la damacsanaayeen ee suuragali weysay. Wixii la dhacayna waxaa la leeyahay meel cidla ay ka baxeen. Soomaalidana corruption iyo musuqmaasuq ma dhamaato, markay lacag aragto weji kale ayay yeelataa. Marka aqeeray waa ku mahadsantihiin barnaamijyadii na soo gaaray intaas ayaan ahaayeen. Waxaan idinka codsanaynaa YouTube-keena subscribe-ta iyo like-ta iyo share-ta nala wadaagtaan. Mar walba warar nagu soo kordhana waa idiin soo gudbinaynaa. Waa ku mahadsantihiin la socodkiina barnaamijkeena tan iyo kulantada dambe oo xiiso leh waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.